حمزة وحي يقول سو قاضي قلديدان hadalka inta badan isku wanaagsan saxaafada meelaha ka hadla ama wararka soo tabiya ama barnaamijyadu haday mikrofoonka qabsadaan way ku yara adagtay inay soo gaabiyaan laakiin munaasabada oo goor dambe inoo socota iyo dadka badan darteed waxaan rajeynayaa inaan soo gaabin doono ugu horeyn waxaan salaamayaa marti sharafta qiimaha badan leh ee munaasabadan ka soo qayb gashay oo ay ugu horeyso bahdayda saxaafada oo aanu ahay hadlahoodii iyo gudoomiyahoodii waxaan u ducaynayaa marka koowaad oo aan hambaliyeynayaa hoggaanka cusub ee jaaliyadda Somaliland ee la doortay oo ugu horeeyo walaalkay saaxiibkay awowgay Mukhtaar waxaan leeyahay ilaahay haydika yeelo kuwii halka maanta la soo gaarsiiyay ka sii dhaqaajin lahaa runtii marxalado badan oo jaaliyaddu soo martay baan anigu sakariyahan u soo joogay caawa markaan halkan soo galay madashan ay maaday aad iyo aad baan ugu farxay waxaan dareemayaa in labeentii iyo aqoon-yahankii iyo waxgaradkii reer Somaliland oo haweenku hormuud u yihiin oo dhalinyaradu hormuud tahay oo odayaasha halkan noo fadhiyeen ay ahaayeen kuwa caawa goobjooga oo midaysan waxayna mideeyeen waad garanaysaan markastoo cadaadis yimaado midnimadu waxay noqonaysaa meesha la isugu yimaado sida caawa Mukhtaar xafladda uu inoogu soo bandhigay ama loogu dooranayo gudoomiyaha ay noo midaysay insha Allah tacaala looguna doortay gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland waxaan rajeynayaa in isbedel la mid dalkeennii ka dhaco oo madaxweyne midaynaya dalku oo insha Allah sanadkiisa yimaado inaguna intaa aynu ka sii shaqeyno sidii dadkan qulubtooda loo midayn lahaa oo waxa ugu muhiimsan marka ummad la dhisayo in qalbiyada la dhiso oo laga shaqeeyo in qalbiyada dadku ay midoobaan marka koowaad qalbiyada dadkana waxa midayn karaa hadba jiilka shaqeynaya jiilasha odayaasha u badan ee siyaasadda hormuudka waa maanta waqtigooda uu soo dhamaaday dhalinyarada halkan joogta iyo kuwa adduunyada daafaheeda jooga ee wax bartay ee aqoon-yahanka ee caafimaadka bartay ee siyaasadda bartay ee dhaqaalaha bartay jiilkeena baa wax midayn karaya oo qalbiyadeena ka shaqeyn karaya waxaan rajeynayaa jiilkeena siyaasadda waddankii ka socota ee qarribin marka koowaad aanayna saameynin oo aynu inagu noqono kuwa wax bedelaya Mukhtaarna waxaan u rajeynayaa inuu noqdo mid intaa caawa isu timi iyo inta kale noqonba mideeya hanad oo ah gudoomiyihii caawa xilka wareejinayna waxaan leeyahay meel wacan baad soo gaarsiisay madasha waxaa fadhiya walaashay Muuna oo iyaduna ay gudoomiyihii ka horeeyay hanad Axmed Saalax oo ah gudoomiyihii ka horeeyay hanad gudoomiyaal badan oo soo bedbedelay baa jiray duruufo badan baynu soo marnay laakiin duruufta maanta taagan waxaan dareemayaa inay tahay tii aynu caqabado badan kaga tallaabsan lahayn waxaynu garawsanay oo garaadkeenu inoo sheegaya maanta inaynu Somaliland inooga baahantay badbaadadana dhalinyarada ka imanaysa iyo haweenkan iyo dadka quruxda badan la caawa waqtiga fadhiya ee aanan mid u sheegi karin waxaan idinku dardaarmayaa xafladii kuwa ka horeeyay 2 sano iyo 3 sano iyo 5 sano ba dhacay ee jaaliyadu isku wareejinayeen aan mar walba kala aynu u midoowno marka inagu midoowno dadka kalena u yeeri karnaa inta kale inaga fikirka duwan aan qancin karnaa qofka ka yimaaday laascaano ka yimi baran ka yimi saylac iyo lawyacado inta Somaliland xayndaabkeeda ku jiraan waa inay dareemaan inay Somaliland leeyihiin waxay ku dareemi karayaan marka waxa miiska saaran loo qaybiyo si cadaalad loogu qaybiyo qolada waddankii joogta ee siyaasadda ama midida daabkeeda aysan waxaan leeyahay waxa aad haysaan ilmooda filee sida aad ugu qaybin kartaan ugu qaybiya hadalkayga kooban intaasan caawa soo gabagabeynayaa madaxda ku fadhida iyo shacabka waa salaam iyo salaam calaykum.